بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داود يالي دلهانتين ميل كستو أتشوكتان وحنا تكسر دواتان برامجكيني ورقيسيدي وحياباه القرآن ودادان وكلا كداوتان تلفزيون كعالمي جيهون كيبل برامجكايسيون وداود يال آلابا كسو قادن وحياباه وحيسا بدن ورقيسيدو قرآن هدي الله ودلو قلادنا برامجك وحيدين لسعوتين دونه أنا قوى سعيد هذا جامع. واتهاي داوديال aan soo qabta xubinteena u horeysay inuu barnaamijka ku soo qaadanayno waa wargeyska Hubaal oo ka soo baxay caasimadda magaalada Hargeysa ayaa waxa uu daabacay haweeney filim qaada oo dhibtay ama hagaardaamaysay dad qaxoontiya oo lagu xukumay 3 sano oo xadhiga waa kan isagoo wargeysku arintaasi ka faaloonaya aynu ka wada bagano warbixintaasi. haweeney filim qaada ah oo dhalatay dalka Hungary ayaa fiidiyow laga dubay waxa uu muujinayaa iyadoo laad la dhacaysay isla markaasina jallaafaynaysa dad qaxoontiya oo ka soo gudbaya xadka dalka Hungary uu la leeyahay dalka Serbia waxaana lagu xukumay 3 sano oo xarig dibad joog ah kadib markii lagu helay eedeymahaasi loo soo jeedinayo inay dad qaxoontiya si xun ula dhaqantay. gabadhani waxay bishii September ee sanadkii 2015 iyadoo filim qaadaysa isla markaasina ka duubaysa dad qaxoontiya oo ka soo gudbaya xadka ay la leeyihiin dalka Serbia iyo dalka Hungary iyagoo ka soo gudbaya ciidamada booliiska ee bartaasi ku sugan waxaana sawir ka qaaday ama fiidiyo ka duubay iyadoo dadkaasi leynaysa isla markaasina gabar yar oo aad u yar laad la dhacaysa sidoo kalena nin ilmo yar xambaarsan jallaafaynaysa. fiidiyowgaasi ayaa noqday mid la yaab leh hase yeeshee maxkamadda dalkaasi ayaa iyadu sheegtay in gabadhaasi ay ku xukumeen 3 sano oo xadhiga. garsoorka gabadhani gacanta ku haya dacwadeeda ayaa waxa uu sheegay in gabadhani waxa ay ku kacday ay xuquuqda aadamaha ka baxsan tahay waxaanu diiday dooda qareenka gabadhani difaacaya oo isagu sheegay in gabadhani aanay wax dambiye lahayn balse dadkani ay iyagu soo weerareen hase yeeshee maxkamaddu waxay sheegtay inaanay arrinkaasi aqbalaynin. gabadhani ayaa iyadoo istifaacaysa waxay sheegtay in dadaal u tiro badan ay ku soo yaaceen oo kamid ah qaxoontigaasi kadibna ay nafteeda u baqatay sidaasi darteedna ay isku difaacaysay. watahay daawadayaal warbixintaasi aynu intaasi kaga soo gudubno aan hore ugu sii socono barnaamijkeena wargeysyada iyo waxyaabaha quraana soo qabta daawadayaal markana xubinteena xigta ururka midowga Afrika ayaa waxay madaxweynaha Gambia ugu baaqeen inuu xilka ka dego kadib markii uu diiday Yahya Jammeh inuu xilka wadankaasi ka dego. waa tan warbixintu arintaasina waxa wax ka qoray wargeyska Dawan waa kan isagoo wargeysku ka faaloonaya daawasho wanaagsan. ururka midowga Afrika ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi Gambia aanay u aqoonsanayn Yahya laga bilaabo 19 bishii December ee sanadkii 2016 oo doorashada laga guuleystay madaxweynahaasi waxaanay ugu baaqeen in xilka uu ku wareejiyo madaxweynaha ku guuleystay. golaha ammaanka iyo nabadda ee ururka midowga Afrika ayaa ka digay cawaaqib xumo ka dhalata dhawaaqani uu sheegay madaxweyne Yahya inuu yahay madaxweynaha xaq ah ee dalkaasi Gambia. ururka midowga Afrika sidoo kale ayaa u baaqay laamaha ammaanka ee dalkaasi Gambia waxaanay ugu baaqeen inay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadda dalkaasi. madaxweynaha dalka Nigeria Mohamed Buhari oo isagu ku sugan dalkaasi Gambia isagoo hogaaminaya wafdi ka socda urur goboleedka galbeedka qaaradda Afrika ee lagu magacaabay kuwaas waana talaabadii ugu dambeysay ee Yahya Jammeh culays loogu saarayo in xilka uu wareejiyo isla markaasina uu ku wareejiyo ninka ka guuleystay oo lagu magacaabo Aadan. doorashadii madaxweynenimo ee dalkaasi ka dhacday bishii December ee sanadkii 2016 ayaa Aadan uu ku guuleystay aadan oo idaacada BBC da la hadlay ayaa u sheegay in madaxweynenimada loo dhaarin doono toddobaad ka soo socda
waxaanu Yaxye Jaamac ugu baaqay in wadaxaajood uu la qaato madaxda urur goboleedka galbeedka qaaradda Afrika ee ku sugan dalka Gambia. dhanka kalena madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Gambia ayaa waxaa la sheegay in dalkaasi uu iskaga baxay kadib markii madaxda urur goboleedka galbeedka qaaradda Afrika ay ku fashilmeen inay la heshiiyaan madaxweyne Yaxye ayaa diiday in 19 bisha uu xilka wareejiyo. aadan oo ah madaxweynaha la doortay ayaa waxaa la safraya wafdi heer gobol ah oo ka socda urur goboleedka ECOWAS waxaanay u safrayaan dalkaasi Malawi halkaasi oo ay wada hadallo dheeraad ah ku yeelan doonaan. ciidamada dalkaasi Senegal ayaa iyaguna diyaar u ah inay meesha ka saaraan hogaamiyaha dalkaasi Gambia Yaxye Jaamac ee isagu diiday natiijadii doorashada ka soo baxday. hase yeeshee maxkamadda sare ee dalkaasi Gambia ayaa iyana dhageysan doonta muranka doorashada. wakiilka qaramada midoobay dalka Gambia u qaabilsan oo lagu magacaabo Maxamed Ibnu Jaamac ayaa isaguna waxa uu sheegay in golaha amniga ee ECOWAS ay raadin doonaan UN isla markaasina ay UN la doonayo in loo ogolaado inay ciidamo geyso dalkaasi Gambia. waxaanu sidoo kale golaha uu sheegay in dalalka galbeedka qaaradda Afrika ay shaki la'aan tahay inay adeegsan doonaan wax kasta oo meesha lagaga saarayo hogaamiyaha dalkaasi Gambia ee isagu diiday natiijadii ka soo baxday doorashadaasi. waxyaabaha ay sameyn karaan waxaa kamid ah inay awood adeegsadaan. kumanaan qof oo kamid ah shacabka dalkaasi Gambia ayaa iyagu iskaga qaxay dalkaasi waxaanay ka cabsi qabaan in dagaal sokeeyo uu ka dhaco dalkaasi. dalalka midowga Afrika ayaa iyaguna shalay sheegay in aysan madaxweynaha Gambia u aqoonsanayn Yaxye Jaamac waxaana sheegeen in madaxweynaha dhabta ah ee dalkaasi Gambia uu yahay madaxweynaha cusub ee isagu ku guuleystay doorashada. waa tahay daawadayaal warbixintaasi aynu intaasi kaga soo gudubno. markana dabcan daawadayaal aan soo qabto dawladda Jarmalka ayaa lagu eedeeyay inay diiday inay bixiso magdhow ciidamadeedu xasuuqay ka geysteen wadankaasi Namibia qarni ka hor taasi oo lagu laayay dad ka badan 100,000 oo qof. aynu daawadayaal warbixintaasi ka wada bogano. dawladda Namibia ayaa waxa lagu eedeeyay xusuuq ay ka geysatay dalka Namibia 1900kii oo hadda laga joogo hal qarni kaasi oo dhagta dhiiga loogu daray 100,000 oo Namibiyaana gaar ahaan qoomiyadaha loo yaqaano Herero iyo Nama. qoomiyadahan waxa ciidda hoose mariyay oo xasuuqay ciidamadii gumaystaha Jarmalka horaantii 1900kii kaasi oo lagu tilmaamay in lagu cirib tirayo qoomiyadahan si aan cirib dambe looga arkin. dawladda Jarmalka ayaa dhawaan raaligelin ka bixisay xusuuqaasi waxayna u aqoonsatay dhulkii falkaasi ka dhacay inuu galay taariikhda dambiyada iyadoo aan wadamada Yurub laga xusin ama aan cid kale ayna ka hadlin xusuuqaasi ay dawladda Jarmalku ay ka geysatay dalka Namibia muddo imika waqti dheer laga joogay balse haweeneyda hogaamisa dalkaasi Jarmalka ee la yiraahdo Angela Merkel ayaa sheegtay inaanay macnaha raaligelinteedu ahayn inay bixinayaan magdhow xusuuqaasi arxan darrada ahaa. su'aasha taagan ee ah inay jirayso magdhow iyo cawaaqib sharci midna ma aha arintaasi waxayna tiri raaligelintu ma sameynayso wax raad ah oo ku saabsan taariikhda iyo waliba sida ay u dhacday ayay tiri. Susan Chabli oo ah afayeenka Angela Merkel taasi oo la hadashay warfidiyeenada tafiirtii ay ka tageen qoomiyadaha Herero iyo Nama oo ku nool dalkaasi loo yaqaano Namibia ee qaaradda Afrika ayaa dacwad u gudbiyay maxkamad ku taala Mareykanka si ay u raadsadaan magdhowgooda. dawladda Jarmalka oo diiday inay iska difaacdo dacwadaasi ayaa si toos ah u shaacisay in aanay wax magdhow ah arintaasi ka siinayn qoysaskii dhibanayaasha ahaa ee xusuuqaasi loo geystay. xataa haddii ay dacwadaasi lagu helo ma jirto ballanqaad ku saabsan in caawimada dibadda ee Jarmalku bixiyo ay gaari doonaan ama lagu caawin doono dadka tirada yar ee ka hadhay dadkii dhibaatada la gaarsiiyay ayuu yiri qareen magaciisa la yiraahdo Ken McCallum oo ku hawlan inuu dacwadaasi ka difaaco dalka Jarmalka. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka oo la yiraahdo
martin ayaa sheegay in xukuumadda Berlin ay aqbasho in xusuuq dhacay labada dawladoodna ay ka wada hadleen muddo 2 sanadood ah si arrintaasi la isula meel dhigi lahaa qeexitaankeeda iyo falalka dambi ee ka dhacay halkaasi dawladda Jarmalka ayaa dalka Namibia hore u siin jirtay caawimo aad u badan haddaba xusuuqan ayaa dhacay 1904 ilaa 1908 kadib markii qoomiyadaha Herero iyo Nama ay ka hor yimaadeen Jarmalka oo waqtigaasi gumaysanayay Namibia gebi ahaanteed oo ku taala koonfur galbeed ee qaaradda Afrika xusuuqan waxaa lagu cirib tiray ku dhawaad 100,000 oo qof oo Herero ah iyo tiro ku dhow 100,000 oo kale oo qoomiyadda Nama ah taasi oo ay sheegeen in ciidamada Jarmalku ay si bareera u xasuuqeen dadkaasi waxaana hogaaminayay ciidamadaasi nin la oran jiray Lothar von Trotha waxaanu amar ku siiyay ciidamadiisa inay xasuuqaan qoomiyadahaasi si aanay dunida ugu sii noolaanin qarniga 20aad taasi oo noqotay taariikhda xusuuqii ugu horeeyay ee qarnigii 20aad dhaca watahay daawadayaal warbixintaasina aynu intaasi kaga soo gudubno waxa kaloo daawadayaal aynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena faa'iidooyinka iyo waxtarka ay leedahay saliidda laga sameeyo sinsintu waa midhaha ugu qadiimisan ee aadamigu beerto taasi oo laga sameeyo saliida aad u fiican oo jirka iyo caafimaadka faa'iidooyin fara badan u leh sida la sheegay muddooyinkii la soo isticmaalayay ayaa waxa ay warbixintu sheegaysaa inay ahayd ilaa 5,000 oo sano dalagan ayaa ah dalag awoodiisu ay fiican tahay kaasi oo ka bixi kara dhul qalayla oo kulayla kaasi oo aan tacab fara badan u baahnayn sida dhirta kale kuna kori kara dhul qalalan oo kulul sinsintu waa midho laga dhaliyo saliid taasi oo inta badan xadaaradihii soo maray dunidu ay siyaabo badan u tilmaameen sida masaaridii hore ay u yaqaaneen sesamati waxayna ka mid ahayd dawooyinka ay faraacinadii ay u isticmaali jireen daaweynta sidoo kalena xadaaradihii baaliyiinta iyo hindida ayaa sababo kala duwan u adeegsan jiray saliidaasi haddaba saliidani ayaa ah mid aad u nafaqo badan sinsinta waxa ku jira inta badan nafaqada uu u baahan yahay bini'aadamku ama guud ahaan nooluhu waxaana ku jira noocyada carbohydrate iyo borotiin gaar ahaan amino acid dux ama fats iyo sidoo kale vitamin C iyo sidoo kale macdanaha calcium iron magnesium iyo phosphorus potassium sodium iyo zinc sinsintu waxa ay leedahay saliidda ugu badan ee dhirta laga dhaliyo waxayna ka mid tahay saliidda ugu adkaysiga badan ee aan dhaqso u xumaanin waayo waxa ay leedahay xaddi aad u sareeya oo dabiiciya saliid macsarada sida saliid macsarada waxa ay qani ku tahay omega 6 oo jirka faa'iido weyn u leh sinsintu waxa kaloo ay qani ku tahay borotiinno kala duwan iyadoo 25% miisaankeedu uu yahay borotiin faa'iidooyin fara badanna jirka u leh watahay daawadayaal wali halkaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga ee Home Cable waxaan bartamaha wali kaga jirnaa barnaamijkeeni wargeysyada iyo waxyaabaha quraan wadahadaan oo kale daawadayaal ka daawataan telefishinka caalamiga ee Home Cable barnaamijkaasi oo daawadayaal alaaba sidaad ogsoontiin aanu ku soo qaadano waxyaabaha ugu xiisaha badan ee wargeysyada quraan hadday noqoto maqaalada warbixinaha iyo waxyaabaha kale ee aanu isleenahay daawadayaasha ayay raali gelinayaan dabcan daawadayaal markana aan soo qabto xubinteennii ciyaaraha oo alaaba aanu barnaamijka ku soo qaadano tababaraha kooxda Chelsea ayaa markii saddexaad ku guuleystay abaalmarinta macalinka bisha aynu eegno daawadayaal warbixintaasi tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa markii saddexaad oo xidhiidha ku guuleystay abaalmarinta macalinka bisha ee horyaalka Premier League ugu fiican wuxuuna dhigay taariikh cusub oo aanu weligii tababare kale gaarin Conte oo bilihii October iyo November ku soo guuleystay macalinkii horyaalka Premier League ugu fiicnaa ayaa markii saddexaad oo xidhiidha
guddoomay abaalmarintan oo bishii December uu ku garaacay tababare Klopp, Jose Mourinho iyo weliba Mourinho muddadii ay kooxda Chelsea ku jirtay 13 guuleed ee xiriirka ah ayuu tababare Conte si joogto ah ugu soo guuleystay abaalmarinta macalinka bisha ee horyaalka Premier League ugu fiican waxaana uu abaalmarintan ku dhigay rikoor cusub oo isagu u gaara. Chelsea ayaa bishii December ciyaartay 6 kulan oo Premier League ah ciyaarahaasi oo ay ku wada guuleysatay dhammaantood sida abaalmarinta macalinka ugu fiican bilihii lagu soo kala guuleystay ayaa waxa ka mid ahaa August 2016 waxa ku guuleystay Mike Phelan. September isla sanadkii 2016 waxa ku guuleystay tababare Klopp. October 2016 waxa ku guuleystay isna Antonio Conte tababaraha kooxda Chelsea. November waxa ku guuleystay isla tababare Conte. December oo ah abaalmarintiisii ugu dambeysay ee markii saddexaad uu ku guuleystay ayaa ay ahayd Antonio Conte sidaasina uu ku qaatay abaalmarintiisii saddexaad. waa tahay daawadayaal in warbixinteennii ciyaaraha oo aynu ku soo qaadanay tababaraha kooxda Chelsea oo ku guuleystay abaalmarintii saddexaad ee macalinka bisha aynu intaasi daawadayaal ku soo dhaafno aan soo qabto daawadayaal markana waa nin qaxoontinimo ku galay wadankaasi Jarmalka ayaa waxa uu dacweeyay shabakada ay bulshadu ku wada xidhiidhay ee Facebook kadib markii uu sheegay in laga baahiyay inuu yahay ama uu ku leeyahay falal argagixiso. arintaasina daawadayaal waxa wax ka qoray wargeyska Dawan waa kan isagoo wargeysku arintaasi ka faaloonaya daawasho wanaagsan. nin u dhashay dalkaasi Syria oo qaxoonti ah isla markaasina ku nool wadanka Jarmalka ayaa la sheegay inuu dacwad ka gudbiyay shirkadda Facebook kadib markii ay baahisay sawir uu la galay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel barta ay bulshadu ku kulanto ee Facebook waxaana ninkaasi ku eedeynaya inay ku masabideen qoraal argagixiso oo lagu faafiyay barta ay bulshadu ku xidhiidho ee Facebook. talaabadani sharciga ah ee uu qaaday ninkaasi ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dacwad badani lagu eedeynayo amaba shirkadda Facebook lagu cadaadinayo inay ka feejignaato hadallada been abuurka ee lagu faafinayo barteedan. waxaana jiray dhacdooyin kale oo aad u fara badan kuwaasi oo been abuur ah isla markaasina dad qaxoonti ah lagu eedeynayo inay ka mid yihiin ururada argagixisada. ninkani dacwadda ku soo oogay Facebook oo lagu magacaabo Anas ayaa dacwadani furay waxaanu sheegay inuu aad uga xun yahay dhacdadaasi lagu faafiyay baraha ay bulshadu ku kulanto Facebook ee lagu eedeynayo inuu yahay argagixiso. bishii September ee sanadkii 2015 ayaa Angela Merkel waxay booqatay xarun ay ku nool yihiin dad qaxoonti oo aad u tiro badan. kadib ninkani ayaa caan ka noqday markii uu sawir la galay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jarmalka. iminka ninkani waa 19 jir waxaanu dalka soo galay isagoo qaxoonti ah kadib markii uu ka soo qaxay dalkaasi Syria oo uu soo maray dalal aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin Turkiga, Greega iyo Serbia. waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena wargeysyada iyo waxyaabaha quraan aan soo qabto daawadayaal xubinteena u dambeysay inuu barnaamijka ku soo qaadanayno taasi oo ka waramaysa daraasad ay sameeyeen saynis yahano kuwaasi oo ku sameeyay qaababka kala duwan ee caaradu u samayso xuubkeeda iyo sida ay u ugaarsato iyo waxyaabaha u suurtageliya inay shabakadaasi ay ku ugaarsanayso ay samaysato. waa tan daawadayaal warbixintu aynu wada daawano. khuburo saynis yahana oo u dhalatay wadamada Sweden, China, Spain iyo Britain ayaa daraasad ay dhawaan ka sameeyeen habka ay u samayso caaradu xuubkeeda ugaarsiga ayaa ay soo bandhigeen natiijadii uga soo baxday khubaradaasi oo in muddo ku daba jirtay howlahaasi iyo waliba baaritaanadooda. waxayna sheegeen inay ogaadeen inay bakteeriyadu ay ka caawiso caarada inay dhisato xuubkaasi kadib marka ay ku soo dayso dheecaano kala duwan oo u suurto gelinayay inay isqabsadaan xuubkaasi. xuubkan oo ay ku ugaarsato sidoo kalena ay samaysan karto dherer walba oo ay doonto ama ay u baahan tahay
ayaa khubradani waxa ay sheegeen tijaabooyin kala duwan oo ay ku sameeyeen iyadoo ay geeyeen laababka lagu baadho biolojiga iyo chemistryga waxaanay sheegeen in dheecaanadan ay soo daynayso caaradu ay yihiin kuwa inta badan ay la socoto bacteria kuwaasi oo suurto gelinaya dhismaha xuubkaasi inta ay tijaabadaasi ku jireen ayaa waxay khubradu sheegeen inay tijaabooyin kala duwan ka qaadeen caaradaasi dheecaanadaasi ay soo daysay iyadoo ay ku qaadeen irbado yaryar oo ay ugu talagaleen waxaanay ka soo diyaariyeen warbixin dheer oo ay kaga waramayaan qaababka kala duwan ee ay u samayso caaradaasi waxayna sheegeen in dheecaanadaasi iyo bakteeriyadaasiba ay awood u leeyihiin inay sameeyaan xuub dhaadheer oo gaadhaya ilaa 1 mitir waxaanay muddo gaaban dheecaanadaasi isku qabsan karaan si fudud iyagoo marka dambe noqonaya kuwo adag oo si fudud ay u gali karaan xayawaanada kale ee ugu tala gashay inay ku ugaarsato waa tahay daawadayaal guud ahaanba intaasi waxaynu ku soo afmeeraynaa amaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada iyo waxyaabaha quraan waad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ee Home Cable barnaamijkaasi uu daawadayaal alaaba ku soo qaadano waxyaabaha ugu xiisaha badan ee wargeysyada quraan hadday noqoto maqaalada warbixinaha iyo waxyaabaha kale dhacdooyinka aadka u xiisaha badan daawadayaal barnaamijka waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Saciid Aadan Jaamac aniga iyo dhammaan khiyaartayga la qayb qaadatay intaynu daawadayaal tan iyo mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh